إلهي باوين روحي آمنا وودل مركورة وان سلامة يا مدحوين كحجينك iyo marti sharafta kale si guud baan u salaamaya waayo marmarka qaar kood dadka magac dhowdo qof aad ka tagaysaayo qalad baad galaysaa half side baad galaysaa marka madaxweyne ku xigeenka mooyaan intiina kale salaam guud baan idin soo wada marinaya mar labaad runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan halkan imaado oo aan la wareego xilkan cusub marna waa farxad marna waa yara warwar markan saaka soo toosay baan idhaahdaa halkeed waxaan kaga hagaagaysaa kullu warwarku iska jiraa si kastoo soo shaqeyso aqoon iyo ilbaxnimo iyo waayo aragnimo leedahay waad yara warwaraysaa xagee waxaan lagaga hagaagayaa dadku sidee weegi dadka maxaa lagu oranayaa khadratulo markaad subax isqaabishaan halkeed ka bilaabaysaan maaragtay yani waxyaalo badan baa kugu wareegaya laakiin haddana ugu dambeynta markay dadku hadafooda leeyihiin hadafkuna shaqo yahay waa la isla keenayaa inagu waxaabaynayba dad Somaliland darisaho asal ahaan Soomaaliyaho isku afaho waaba isla garanay dadku iyagoo kala duwan bay haddana wada shaqeyn karaan ay wax wada qaban karaan runtii waan ku faraxsanahay waxa kale aad ugu faraxsanahay tafaasiisha laga sheegay khadra oo aan xilka kala wareegayo oo ah tafaasiil aad u wanaagsan oo aan jecelahay aniga laftigaygu in qaar badanna aan kaga daydo waayo adiga goor marka qof xil loo magacaabo qofkuna wax isyaara bidayo hadaad marka hore neefis gelisood naqas gelisood iska dhigtay inaad wixii hore aan waxba ahaynood adigu ka fiican tahay ugu dambeynta waad soo fail garoobaysaa waad soo fashilmaysaa waxa la qaatay dadka ka horeeyay laftooda wax badan bay kugu dhaameen bal horta waxay kugu dhaameen asaaskoodii qaado base-koodii qaado wixii aad ku dari karayso adiguna halka kaga sii dar marka khadra kullu in badan ay soo qabatay oo wanaagsan anu waan kaga sii dayanayaa raadkeediina waan sii xusayaa wixii aan ku kordhin karana waan ku kordhinayaa khadra sida la sheegay waa de waxa ahayd gabadhii horeysay meeyar noqotay gabadhii horeysay dhiiji horta intaas oo kaliya kugu filanba marka lagu dhahay gabadhii hore waxay soo jabisay gidaaro badan oo adagoo rag iska xidhay markii hore ayay soo jabisay maantana iska dhaaf gabadhaadoo adoo ninaan jabin karinba gidaarada qaarkood sida de waa la xidhay oo waa meel waa seero la ootay marka kol haday gidaarka ka soo dhacdo meeyarnimo ka soo booday dhiijinimo ka soo booday inta hadhayna weel garanaan waxaan qabaa inay ka boodi karto si dhib yar marka si niyad wanaaga oo kalgacala ayaan kaga la wareegaya xilka oo aan waliba abaal ugu hayo taasi waa taa midda labaadna waxa weeyaan aniguna meelo kale uma kulay ka sii kabi doona oo meelaha iyadu hagaajisay mooyaane inta kale dhiman anigu shaqo ahaan iyo aqoon ahaan waxaan ahay maamul iyo hogaamin baa tacliintaydu ahayd aan jaamacadahana wax kaga dhigi jiray de weligay dowladda uma shaqayn oo aan ahayn professor aan jaamacadda mar wax ka dhigaya mooyaane dowladda maamul uma soo qaban laakiin se dad ma soo maamul 12 kun oo qof ma soo maamulo wadaajinabiya marka de kulli maamulkuna asaaskiisu waa isku wada mid waxaan qabaa waynu isla jaan qaadi karnaa haddii aynu hawsha isla garanno hal hadaf un baynu leenahay halka hadaf oo ah inaynu kulliga madaxa ku hayno madaxtooyadu waxay u taagantay shicibka ayaa iskala daartan iyo dhismahan iyo xafiisyadan inaguna shicibkaynu u shaqaynaa horta taa waa inaynu ogaanaa waa inaynaan ogaanin inay tahay meel baawar ahoo madaxweynaha laga agdhowiyo madaxweyne ku-xigeenka laga agdhowiyo wareegtooyin ka soo baxayaan ama lacag taallo oo yani taa waa inay tahay shaqaale u shaqeeya ummadda inaynu nahay shicibkuna waxay soo doortay madaxweyne ku-xigeen inteena halkan fadhiday intay naga maqana shaqadeenu waxay tahay inaynu sahalno madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shaqadooda inaynu sahalno mid nabadgelyo uga sahla mid communication iyo media uga sahla mid protocol ka sahla mid maamul iyo lacag ka sahla shaqadeenu waa taa waa inayna ku qofal markaad mesela daar la dhisayo haddaynu daar example idinka soo qaado daarta de engineer baa soo design gareeya oo meesha oo dhan maamulka haya laakiin qof walbaaba meel buu ka galaa mid baa daaqada aluminium taa gelinaya mid baa bulaacadaha iyo qasabadaha gelinaya mid baa leerka gelinaya mid baa lebanka gelinaya mid baa jiingada saaraya laakiin ugu dambeynta qof walbaaba uu arkaya daartaas si quruxda badan leh ayuu meel saameyn kaga leeyahay oo uu dhismaheeda qayb ka yahay inana shaqada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku hayaan ee dowladda u hayaan ayaa midkeenba meel ka gufaynaya markuu hadafkeenu kaa yahay u malaymayo inaynu wax isla waayayno anigu ma yahay qof siyaasadaha iyo isku haysiga iyo arrimaha hoose gala
حتى أنا قاعد أوقف وحيد شيء وحيل حنت وقف كلامه يردون ولا بالكالة هذا أركان الله حياة هل كان وبلدنا كالة وشيء ويا متش على وقتك كهقاضي هذا الرماه هو صوصك شد ما تقدر كحيقضه وعن شعله إنه قفل البابا إنه قفل البابا حل كيسون وقتو وردين هشيس كنا ينطلع كاشتو سيدا دوش ديساني وحبيقة مقلين لا يركاسي هده اللعان أو قروح بطان أو تصفي عنو شدو أرمها يريرها هوس إيا حانتو دا إيا تفاسيشو دا انترستد كميه بركا يعني وحن كوضا وانا سيدا مامولكوها لاغو إن أد إيكتو ريسلت قف كان هورت الريسلت نتيجة مكينة أرورتي مركو سو شقة تاقي الله انتو رواحيو مسوحو كشقيا اون هذا الرقية أرن مركا نتيجة إنكو كوهشينينا qof walbaaba inuu hadaf ku yeesho shaqada uu hayo ee daarta la dhisay madaxweyne ku-xigeenku ay ka talinayaan inuu meelsi uu ka gufeynaya ay caday hadii aanay cadayn tan marka waa in dib u cadaynaa marka horta mid waata marka waxaan xoog saari doonaa anigu saddex shay inta aan deedan la shaqeynayo kulliba daanood tusaalaha ka qaadanaya madaxweyne ku-xigeenka haddana saddex shay aniga niyadeyda ku wareegaya inaan sii hagaajiyo waxyaalaha ay khadrisay hagaajisay environment-ka dhismaha quruxda wanaaga horumarka ay samaysay oo environment kan hagaajino haday noqoto gaadiid haday noqoto parking haday noqoto nidaamka haday noqoto geedarka sida yihiin balan horta waxa hagaajino environment kan inoogu noqoto madaxtooyo adduunka ka jirta kuwa ugu quruxda badan leh inay kamid noqoto halka khadri geysay aan ka sii qaado niyada waan ku hayaa mid labaad waxa weeyaan inaan dhisno tayada shaqaalaha وشغالوه أنت تبرون لو سو شغالين هذي اللي يقولون أما حسابيات أما واحد هاي قسمة بروتوكول أما واحد هاي درول أما واحد هاي نكبرت ده هل كيون فدي ليس الدنيا أقوم بيسكو بدلسة سطح بلود يسكو حاجة حتى هل كيون تاجناته وحبا كان ناقصة قفكوا إنه هبين إيا مالين إيا بال إيا وقت كستبا هل كيون تاجنا هرو قصير دقاقة هرو مركز سماية هذي أقوم تاي هذي اللقطة هاي هذي أي تاي sida uu eegay qofku xitaa aragtida aad u eegtay inaad u qalanta madaxtooyada haday tahay farsamada aad ku socoto waxa soo dhan waa inaan horumar ka gaarna iyo mid kale intaas waa inta hoosowne de shaqadaynu hayna madaxweyne ku-xigeenka inaynu communication keena hagaajino xiriirkii kale cid la lahayn inaan hagaajino wasaaradihii sidaynu la shaqeynay inay madaxtooyadu noqoto iyo shaqaaladeedu muraayada ay dadku iska arkayaan qofka jooga gambare ilaa iyo qofka jooga loo yacado uu yiraahdo waa muraayada dalkeena aan halkaas ka arkayno marka hadalka yaanan badinoon macallinimo aan gelin hadalka badan horta marka hore waad salaamantiin waad soo dhaweynaya maanta haddaan xilkii la wareegay bariba xilku inoo bilaabayay si gaargaar aynu kulmi doonaa agaasimayaasha waxyaha ayaynu kulmi doonaa shaqaalahana waynu kulmi doonaa hoos baynu geli doonaa qof kasta oo madaxtooyada ka shaqeeya waxa uu yeelan doonaa shaqada oo cad waxa uu yahay تاسع أيام كنت دال دونين ليش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته